يرابه كافي كفن كيو مال طلع ما أنا لا لا بس ده أو أفريقيا لو لا لا بنايو وما فهمت gabaray marka farta xaajiyey anigu hadda Malaysia u socdaa ma ogtahay maxaa ka jiro yaa meesha marka wax ma ka haysan ma ka taqaanaa halgaa aan in laga soo dhigo ma rabtaa may macnaha sheekaynas maxay tahay ninkaan nin lacag haysta wey baashaali dilciis u socdaa kaamirada soo la taga miya war ani kaamirada warheeda maxaa ka khaldan warheeda waxa social media waa ogtahay ani farta meesha ka joogay baashaal iyo dalxiisa ku jira ani nin lacag haysta maxaa ka khaldaaday ها adi fiyaasa ka hadla fiyaasa meesha joogta ma garanay macnaha qof في هذه قفتها ما جوكتو maya adi qof saaxiibteeda iyadaa weydiino lacala قف ماليزيا جوكتو قفتها متخانة mataqaanaa maybe رياض kenya oo kale ha kenya dada buuxaan mogt malaysia la kaan qof ma ka aqaan هذا فينانسيا وحكرا سنو يا هذا ملاس يا maya maadaama maleesha u socda macnaha xabad orgaaniga haddii jirto way fiicnaan lahayd moogtahay yah hollywoodka horta hollywoodka application iskaga dirsada aan netka ka arka abo qoftan oo ayaan la dhahay ma aragta oo ku jirto ayaan ha yaa ku gashay markii dawaal iska qaadiya hollywoodka waa diyaar an waa garaa وحقا iska qaawine waa diyaariya joog adi iska qaawin waxaas iska ilooba application ma jiro idinka isugano anaaba tiktok arastay oo sil iisoo saaraysiin saan horumar ma war ballaaran baa rabtaa inaad samaysid horumar balaaran iyo hada barnaamijka inaa ka qayb galaan waa saa oo sheekeysanayo waree dadkaas halkaa bay nuuxa ku caqinayo ma aragtay بودكاست وقبلنا بودكاست يا قبلنا كسو قيب قال maaha broadcast maaha qoladii maa ku biirtid كسو قيب قال بودكاست intay ku qabanaysiin محلها مقالة لا هالسنجل لا دحديد لا مال مركا محلها واسو فريسنة yaa la qabanaysiin أديك سنة no don't worry ade markaa ku soo wado snapchat kaaga ma aragtay ma soo diyaaray أنا ديارة لكن أنا كورة سنة أنا وريه caadi أي ديار walaalayaal aniga cuntada cunay waxa u baahanay inaan ku seexdo hal waxa ka dhiman wax إنا كوسعد مسينا كوسعدو sacad ma jirin دبك جير ساس واي جير waxa uu leeytiin gabdhaha Soomaaliyeed saas waa mogtay cunta cunay waa isla dhigay jeer way kaane laakiin ina ku soo socoti waa ku almidisid ka bacdi jirkaaga fiiri rastow waxa arkay datekii UK dhalinyarada gabdha Soomaali oo badan oo meesha oo niman Jamaican la dheed gareynaya maxaa naagii Soomaali qashin camal waa bateen hadda Jamaican marasa hadda 10 door 10 door la isku 10 door gabdha Soomaaliga lagu meersadaa ninka Jamaican maxaa dhaca gabdhii Soomaali gurba saar qisuna cheap and clean yes farta maxaa bariis ku diyaariyay labadiis ya bariis ku diyaariyay fiidiyo jafow ma yaani ma dhihinne Jamaicanka oo Ingiriiska joogaana dhahan ilaa ku dhaarshay cheap and clean kulaha adinka markaa naaga cadaan gurstiisa taman dooro war anaga Soomaali wallahi bilaa nin Soomaali naag cadaan markuu guursanayo waxa waaye asay soo raacda laakiin gabdhaha Soomaalida markay qaf Afrikaana walba xadirniyo dadku waa la tilaa raasada mogtay waaya muslim kuwi shak oo Ingiriis joogan Muslim brothers ma jaas waxaas dhan waxa waaye Jamaican san intaas jeedo ilaa kugu dhaarsay
تمي لو تشكن ها فيري رستو طبعا لو جيكي waxa kaaga والله aniga day aniga day فيري raga فيري ما raga ma arag فيري سو افريكانka تمي لو تشكن oo ku meersana Soomaalidana waxa la hayaa saaxiib 10k 100 gram oo dahab 10,000 $20 meel $10 laakiin waa caadi maxaa la dhalaa cunugo dahab ma la dhalaa mase dheeman la dhalaa afrikaankana bilaadan caadi ma loo dhalaa dhegeyso qof walba markuu ka taga dhaqankiisa yani oo qof kale ajaanib guursanaya sida qofkaas kale dhaqan yani meel dhex iskugu imaadaan sida asoo dhaqankiisa caadiga ku dhex jira camal soo dhaqmi lahaa uma dhaqmo soo marka wixii ina raqiis laga dhigo bilaadan loo ekeesiyo laakiin inta markii la joogo Soomaali ahaan markii la isguursanayo taa dhulka linka taaga waa caadi dhalna waxaa ku siinaysiin 22 chicken maano 12 euro dhageysahay 12 euro ku siinaysiin annagana waxaan ay qaadaysiin 20k ilaa kugu dharshay xaliima caloosheeda la ka fikiraya 12 chicken ila ma 12 chicken ay muxuu saacadeen yahay bo naagtu wax masaajidka laga qaybinayo la cuna masaajidka laga soo qaado 12 masaajidka lagu qaybinayo ma ahane kii hadda wiilka shiiqa wiiri hooslow wiilka shiiqa ma aragtay wiilka shiiqa xabada oo maxaa la dhahaa iyadoo nin Jamaican oo la soo dalxiisayso oo video saaxiibadeed ay soo qarxiyeen sawir iyadoo nin jareera hadda koor sawir la gashay unug masaakiin oo waxay sirtay wiil masaakiin oo masaajidkaaga jiray ee sirtay maalinta sirtay gabadhii ninka jareerka beachka la joogto sameyn meesha beachka la joogto ma aragtay Jamaicanka waay asaas loogu sameynaa wiil Soomaali oo walaalka inaa ku qayaantid alaab oo kawta tu هذا برو جواب فرصك جواب alaab kawta tu oo soo isticmaale inaad dhahdi waa bro imagine oo haddana saaxiibadeeda waxay keeneen iyadoo nin Afrikaan beachka la joogto xajiradeedu banaan yihiin oo dheed kareynayso ilaa ku dhash maalintan rasto arintaas shaki waxay gelisay ragii dhamaa oo guursan lahaay gelisay nin walba gabadhiisa iska soo baaro imagine naag oo lagu meheriyey oo nin Jamaican oo beach la joogto hadda lagu soo dir maalinta meherka dhace iyo sawirka waa la sugay ma fahantan naagtan intay dheed gareynaysa sheekha masaajidka iskaga jiro ma ogeynbo naagtan weekendiga waxay aadi jirtay tumasho baashaal aadi jirtay sheekhi ma ogano asina markii guriga la joogo la hadla meherka dhicin waxa ugu soo diri waayeen ma uu soo dirinay waa la sugayno maalintu fiiri ninka aniga way soo rasto dhageysto wiilka waa aqaana way soo wacay am lucky gabar qurux badan gabar diin la helay gabar ma sha Allah waa helay iisoo hambaliyay hayaa dhahnay adiga a week later wax argeera iyadoo Jamaica dhaxda ka fadhida iyadoo laab dhaas sameynayso waa billah marka aniga hadda horta urura bilaab rabaa xariif ragga Soomaaliyeedna waxa rabaa inay soo joog gareeyaan warnamayahow gabadhu marba haddii mataqaanaayo garoob noqoto ama niman ajaaniba aado baan asaarno yaana dib dibta loola hadlin ha urto adeerabto horto waxaa jiraan niman baahi badan fiiriya wareeda gabarana la saara gabadha hadalka siida farto ma eedu way hadashee inay warkeena dhageysato ma taqaanin labadan waxaan nafisaan ويا هذا الكود وحك سوق نبيس مكهلو يعني شيء قال قيامة يا كهلو على قبل صوت معله أو لو قيامة كاس عمل محل ديكرا نايتاس محيو خلنتها لا كودر شيء كلام روي هذا وح أوريجينال أنت كعرفت يا وح أوريجينال أو محبي فيري أوريجينال والهلا أنا كيجي سجاشك أوريجينال وسكي أبو سنو أسو هاد قد كسوب حي أوريجينال وسكي هاي لكن كاغا هذا لك أنا أوقاتتوا أنا أدو أصمنا إلهي أكتس لنا دنبك سو موجود إلهي أكتس وهلو سميه ملديتنو إلهي محاور دي سيلاي وين كده حياة إلهي كوردي بس كده قد يقول فيري قد يقول أكل وضنا أوكي وشو واحد الوقت سيدة اللي أهاني لكن قد كده حزي وأوكتي وأزه شهوة أبو هذا الكا يقول داليني إلهي أكتس دنبي قول لو سمية هاي وحاوي أنا هذا دنبي قول أديك نواقع شيء
هذا يا سيد نين أو حاسكلي هو فرجينو كليتا كان أولواي أسيغا وحوال إسكاي قراعي كرا Wait, عبد الرحمن رسو ما أنا كل شيء فهسيني يا horta fiiri gabadha iyo ninka ragga ilaahay baa kala duway for example hadda hal mid aan kuu sheegaa ninka ragga fiiri adiga wuxuu kuu samayn karaa uur buu 9 bilood ku yeeli karaa uusan nin kale ku uureen karin isaga kaliya ku yiri 9 bilood aad sugay kadib waa dhale 9ka bilood aad sugaysid 10 naagood waa sii uureen karaa ninka moogta ninka iyo gabadhu isku mid ma aha ninka ragga waxa loogu talagalay inuu mataqaanaa tarmo oo dunida meel walba u mari kara talaabsado laakiin gabadha wax kooban baa loogu talagalay you have to understand أنا أدي لا أنت إذا sitos أور مو يلي كرتا أدي لا أنت أورواي لا كرتا أنا لا أنت أورواي لا كرتا أنا أدي لا أنت أور ويا لك كرا لكن أنا لا أنت أورواي لا كرتا ها دينتاس أنا say no ma yeelan kartaa aamin yeesu ku kaadeen ما أيدا أنا لا أنت أورواي لا كرتا سكستا كويا لا أي ما واحد ما نيجي موقتي لكن ما say ku yeelan kartaa waa ina adiga shahwadaada iyada loo geeyo saas weeyday waa shahwad nin rag in loo geeyo waxa ka wada anagoo isku tagina laga wadaa ma fahmay anagoo isku tagin yo taas ma laga hadlooy boontiga laga hadlooy waxa waaye hadda shiiqi oo la qalday camal nimankaas maxaa lagu sameynaa kaas ii sheegbo ninkaas ilaaha kugu dhaarshay ma isdila hadda ma nool yahay ma dhintay ma suuxay wallaahi oblaa waxa sawirka anigu markaa arkay qalbada ay jabtaa ku intaasoo kunoo doolar ah ka bixisay hataa lagu soo diro فيديو أما الصبر أن أنت ما كان بيج كله جوكت لديت كرناسو إلهي مغلا ودناه نيني أغير الحمد anyway ما جمع سوء إلا العكتاس labadan wiil hal mar aamusa dhibo هاي العكتاس وسوء إلا horta aamus cabdiqaadir oo aamus waxaa jiro ma taqaanaa horta waa idin salaam dhamaantiin abaayo horta gabadha oo la warwareejinayo oo yacni ninka oo UK jooga oo guursaday oo Jamaicanka ah oo gabadha Soomaalida oo la dhahay jikina laga bixiyay wallahi wiilasha Soomaalida ama Englishka fahmin ama way ka been abuureen oo haaf ka soo qaateen videogaas aniga waa fiirsaday 2017 videogaas waxaan ka waxa la isku keenayay waxa jirto meel oo dadka markano gabdhaha garoobada iyo wiilasha garoobada iyo wixii oo yani aan guursanin ninki naagti wait kolkaas soo wacaan saasa ninka naag loogu raadiyaa naagtana nin loogu raadiyaa gabadhaas meherkeeda ilaahay ka cabsada gabdhaha Soomaalida ka been sheegina ilaahay uu bari qofkiina qof guursado horta laakiin ma ahaan meherkeeda intaas jiginka ee meherkeeda ma yani tusaale amal anaga Soomaalida horta wiilka Cabdiqaadir inta ku karkarayso sub meherka عادي مهرك هذا أنا كمهر ما قالونه وحتى عبد القادر هذا الكفيري هذا الكذا هذا ما استمان ترى عبد القادر هذا اللي قبل هذا الكذا هذا ما يسوته كده بنا كسور دقيقة ما يا مش ربطها كتور تسوق لا لا فين سيدا نشبه gabadhaas anaga Soomaaliyeed dana gabdhaha markii la soo doonto nimanka horta meher horumarsiiyaan yana dhaqdhaqleenin laakiin aroosa gabadha loo dhiga ama geel u qal ama ari u qal ama waxad inta u qal gabadhaas family badan ma joogin wiilkeeda maxaa ka noqday meesha marxaati wiilkeeda dhashay maamo weyn ay ahayd arooski yaraay masaajidka maxaa lagu dhigay marka meher yar oo jikne waa arkay ani mid ko kale oo asna Facebook oo TikTok isticmaalo dhahay meherkeeda intaas oo jikin wahay waa been meher ma ahan jikinkaas muxuu ahaa cuntadii la cuni lahaay dadka imaaday oo meherka dhigay gabadha meherkeeda gooni u ahay maynan soo sheegin markii duubayeen meherka waa la qariyay inta meherka lagu meheriyay gabadha so videogaas warwareega arka marka gabdhihii Soomaalida jiibatiin iyo kanatiin iyo kaasatiin ilaahay loo banay anaga inaan qaban guursano qof kasto muslim ah muslimiintu way isguursataa midaada kaleeta anaga dhaqan gooni oo leenahay ina hadda idin dhahan inta saarabna waa dhaqan Soomaali iskugu nahay anaga goonideena ah kuma qasnin dadka kale marka waxaan ka gubtaa dhowr mar oo videoyaasha iga soo hormara gabadhaas la been sheegay waa maama oo yani dhamaystirtay dhalmada iyadaaba afkeeda ka qirtay ani ninka Jamaicanka markii lagu daraayo gabadhaas markii la wacay oo la wareysana wax dhan waa daawanay inta meherka ka ahayn maxaa la qariibas qaybta meherka inta kale waa YouTube kala soo dhigay
oo dadka ayada kaligeed ma xataa been ay sheegeen 4 gabdhood Soomaali ah waa been 4 gabdhood meen hal gabadh Soomaali ah mid oo Ingiriis ku dhalato cadaan ahayd iyo mid oo Chinese ka meelahan ka imaaday magaca uu iga dhumay wadamadan Chinese ka ahaa iyo tu kaleeto wuxuu ahaa Jamaican afartaas uu qabay gabadha Soomaalida maxay ku yeed number 3 mid kaleeto number 4 ninkaas afar naag oo guursaday oo kala yani wadamo kale ah oo muslimiin ah gabadhii ma afartii nin gabadha Soomaalida hadalka soo koob gubanayso ani waxa ku fiiri idinka markano been naga sheegteen beenta marka ay idinku cadeeno karkarina YouTube ka video ka soo fiirsada runa darabtiin laakiin gabar Soomaali jigil lagu ma guursanin meerka waa la qariyay maxaa ka ogtahay sida adiga oo lacag laga qaado inay uga qaadato ninkaas Jamaicanka warkiyo kooban marka maxaa waay beena sheegin Ilaahay ka cabsada ilaa dad taqaanin gabdhaha dhihina meher ma sheegtaan nin kale markuu guursanaya you don't know maadan joogin meerka waa faaraxyaal ma seersan waxba ma dhiiban okay najma su'aal baan ku weydiinayaa nin Jamaican oo saasoo kala maxaan ku yiraahdaa isagoo masaajid gabadha looga daray intuu inii soo fariistay videos ka soo duubay ma dhahay gabdhaha Soomaalida waa uraan waana cheap ma dhahay soo idinku isku mid keenin idinka bawaalidin ay ragga Soomaalida maxaa war anaga idinkaan ka hadlayna horta marka topic idinkini joogo idinka weeye horta feeri anaga dinacay idinka bawaalidin ay tookadiina ba maxaa meeqanaaga oo cadaan idin soo cayso dhaada nimanka Soomaalida waa kan waa ka meeqa waxa idin ka sheego idinka anaga maya anaga naagaheen weena la fleefaanay hadda waxa garanaya mid Sweden joogto wiil Soomaali saa u raadinayso ka tagay ilmo ka dhalay oo ilaa saa wiilka halay raadi anaga waa la soo raadiyay idinka waa la soo caay marka xaqiiqiyada meesha waxa taala hadda ninkan wuxuu yiraahday guurka ninka Jamaicanka hadeerta maalintii xitaa London maqaaxida la isku keeniyay almost gabdho Soomaali niman Jamaican la fadhiyo wada 12 jikeen waxa soo dhan bal cheap marka wiil Soomaali walaalkeeda na walaal nin xoolo saas badan ma haystee aku guursada may $20,000 $30,000 yaa awood ku siiyay marka wiilka walaalka ah la hadlaysiina tiray $20,000 shareerkiina agtiisa ka tahay chicken ka tahay way noo gaartay nin faqiir anaga gooni u yahay taas ina dhahno midda horta oo adeysin jareerka adeysin yaa xaqiijin karo horta cadeen adoo haynin ha iska hadlin markasta waxa soo qaadatiin wax goonida oo naga qarsan anaga arkin waa sheegtiin wixii public ahne oo ognahay oo 100% daamanina anaga waa naqana luqada waa fahmeena waxa 100% gabadhaas meerkeeda ma sheeganin kulligiina waa soo halkaas gabadha wadwadiin oo ninkaas Jamaicanka u guursaday waxa ka dhigteen 4 naagood Soomaali u guursada dhalan beenana ka sheegteen 4 meen hal naag ahayd bas ku jirtay meerkeedana waa la qariyay you don't even know until now isla joogan ma kala tagin I don't know waxa ay tamaysin hadii gabar Jamaican ay raacday oo Jamaican soo xumeeyay ay soo qaylisay that one either choice gareysatay oo noloshaas markii koob way qarsatay ninkaas iyo wixiisa waxaas oo dhan idinkana goonida saas u socotay waan salaam